aabaha dhalay laacibka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr. ayaa beeniyay wararka sheegaya in wiilkiisa uu xiiseenayo dib ugu laabashada kooxdiisii hore ee Barcelona suuqa xagaaga ee soo aadan. wararka ayaa waxa ay intaasi ku sii darayaan laacibka ugu qaalisan kubadda cagta adduunka uu ka qoomeynayo go'aankii uu ugu biiray kooxda reer Faransa ee PSG. wararka soo baxay ayaa waxay tilmaameen in wiilka reer Brazil uusan ku qancin ka ciyaarista kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee PSG isagoo u arka inaysan lahayn wax mashruuc ah, taasoo ka dhigaysa inuu ka cagajiido ka ciyaarista horyaalka Faransa Ligue 1. isla wararkan ayaa waxay tilmaameen in Neymar Jr. uu shan jeer codsaday dib ugu laabashada kooxdiisii hore ee Barcelona kadib markii uu ka dhaqaaqo PSG, isla markaana uu aabihiis kala hadlay arintan mas'uuliyiinta Barcelona suurtagalnimada wiilkiisa dib ugu soo laaban karo garoonka Camp Nou. balse aabaha dhalay Neymar Jr. oo ka hadlay xaqiiqada ku aadan arintan ayaa wuxuu bartiisa rasmiga ah ee Instagram-ka ku soo qoray warar been abuur ah si uu u beeniyo wararka ka imaanaya gudaha Spain. si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain ayaa sheegay in mid ka mid ah saraakiisha kooxda Barcelona uu beeniyay in madaxweynaha kooxda Barcelona Jose Maria Bartomeu iyo aabaha dhalay Neymar ay ka wada hadleen mustaqbalka ciyaaryahanka reer Brazil.